سلطان محمد سلطان أحمد سلطان عبد الرحمن سلطان ديريو كمية السلادين تسومال الآن وما أنت قار كمية وربعين تقول هذه جودها مقارنة حرقيسا أيها وجهران وحوكها اللي جود دير دوان صوص صاريين أصدق الحسب قرن يكون أدنى وذا هذا الكادر وشوين كا فوده إنه قصة حقيقة ذلك كقبصومي دونا جود داسي أو شيء إن عقبة ظهر تعالى هاي السامي غيب سجاد ذلك يسوق شيء إن جود ده نود هذا الكودا يصدق الحسب كلهم كود ay ka muhiimsan tahay xalinta saami qaybsiga dalka si ay doorashadu u dhacdo ayuu yiri waxaan hadaladiisii kamid ahaa waxa weeye dhawaan waxa xisbiyada qaranku ay saareen gudiyo milix xubnood ka kooban oo ka soo tala bixin doonta arintii doorashada Somaliland ee 2019 bisha Maarch noo qabsoomeysa arinta doorashadana caqabad baa meesha taal oo ku jirta oo ah arinta saami qaybsiga waxa loo baahan yahay saddex xisbi qaran gudiyada maanta ay saareen iyo gudoomiyeyaashooda iyo golayaasha kale ee qaranka cidii ay kala maarmi waayeen inta tala midaysan la isaga yimaado laga badheero oo go'aan dhaxalgala laga soo saaro waayo waqtigii waa isku rayaa sanadka imka waxa ka hadhay 3 bilood oo quraata waxa ka dambeeya waxa weeyaan 2019 hadii lahayna gaarsiyo bilaha January iyo February iyo March bisha March doorashadii baa dhacaysa 2 bilood kale oo diyaar garowgii waqtiga inta aynu haysanaa waa sanadkan inta ka hadhay marka in laga faa'iideysto oo laga badheero oo saami qaybsiga xal laga gaadho oo lagu dhiirado oo aan laga warwareegin lagu dhiirado taasi ayaa muhiim ah isagoo hadalkiisa si wata suldaanku ayaa waxa uu ka hadlay xeerka kufsiga oo muddooyinkii u dambeeyay muran dhaliyay isla markaasina dib loogu celiyay golayaasha si kaabis iyo wax ka bedel loogu sameeyo waxaanu soo jeediyay suldaanku in guud ahaan xeerkani si rasmi ah dib loogu celiyo diinta islaamka isla markaasina la eego waxyaabaha uu ka qaldan yahay waan waxa hadalkiisu aad inoogu badnaa xeerkii kufsiga oo media aad u haystay ummado far badan ay ka hadleen hadii ay tahay culimada oo fadwo ka gudbisay wasiirka diinta iyo waqaafta u gudbisay iyo hadii ay tahay xisaabta iyaguna si mug looga hadlay iyo ummado badan oo kale oo iyaguna aldoorka bulshada iyaguna way ka hadleen kelmadan ka odhan waxa weeye marjaca koowaad dad islaam mar hadayna 100% muslima sharciyada koowaad ee dalkan iyo dadkan lagaga dhaqmaa ee loo noqonaya waxa weeye shariicada islaamka dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka u taalaana waxay sheegayaan in wixii shariicada islaamka aan waafaqsanayn aan sharci ahaan dalka lagaga dhaqmi karin mar haddii ay saa tahayna baarlamaanka ayaa uu khaladka koowaad ka yimi waxaan leeyahay baarlamaanka kulli ibn aadam khadaa oo khayr khadaa'una tawaabuun waxaan leeyahay sharcigii inta xukuumaddu ay dib ugu celiso baarlamaanka in laga saaro wixii aan shariicada islaamka waafaqsanayn kadib uu sidaasi ku dhaqan galo oo marlabaad boroseski sharci la mariyo ayaan ku soo koobi lahaa kelmadaasi ugu dambeyn waxa uu suldaan maxamed suldaan axmed suldaan cabdiraxmaan ka hadlay isla markaasina fariin u diray dawladda Sacuudiga isagoo ku dheeraaday siyaasadda diblomaasi ee ka dhaxaysa Soomaaliland iyo dalka Sacuudi Carabiya isagoo suldaanku ku baaqay in guud ahaanba Carabta gaar ahaan Sacuudi Carabiya ay aqoonsato baasaboorka Soomaaliland asibuu yiri ay guud ahaanba istaraatiijiyada labada dal u wanaagsanaato dhawaan dawladda Sacuudi Carabiya waxay si mug iyo miisaan loo soo dhaweysay waftigii hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waran ugu mahad celinaa dawladda Sacuudiga oo ugu horeeyay Malik Salmaan iyo amiirka dhaxal kale waliil ahdiga Maxamed ibn Salmaan labadaba waxaan leenahay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa mowqifkaasi ay qaateen ee qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay garwaaqstaan wax badan ay la qabtaan annagoo taa ku mahad celinaa waxa kale oo doonaynaa anoo ku hadlaya bahda dhaqanka afkoodii in dawladda Sacuudi Carabiya ay aqoonsato baasaboorka Somaliland si loogu soo guto waajibaadka diiniga sida cimrada iyo xajka oo kale isla markaasina ay noo ogolaadaan diyaaradda Saudi Airlines inay Somaliland timaado waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaar iyo GT muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV magaalada Hargeysa